dhibaato xoog leh ayaa ka dhacday dalka Turkiga iyo dalka Suuriya walaalaheen Turkiga macnaha ay noogu fadhiyaan qof kasta Soomaali waa ogyahay waxa ay naga mudan yihiin ama ay nagu leeyihiin ma gudi karno tabarteena yar laakiin maxaan kari karnaa wixii tabarteena inaan la nimaado halka dollar on la imaanayna macnihiisu wuxuu yahay billion dollar haddaan haysana sidaas oo kale u la imaanayn waxaana xukuumadda dawladda Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan xukuumadda prime ministerka iyo maxaan ku raadaa gurihiisa dhammaan ganacsatada dhammaan bulshada rayidka culamaa u diinka dhalinyarada dhammaan waa la shiray waxa la go'aamiyay war wixii karaankeena on karno aan uga qayb qaadano walaalaheen inaan xanuunka aan la wadaagno una muujino inaan ka xanuunsanahay sidaas daraadeed shirka xalay ka dhacay muxuu ahaay hotel jazeera ee la isugu tagay ida diira fiican u muuqday walaalo badan oo Soomaaliyeed oo macna leh ayaa meeshaas xalay intii isugu tagtay oo wakiil ka ah dadka Soomaaliyeed oo dhamay ka wakiil ka xoolo lagu bixiyay gabdho dahabkooda bixiyay ballan qaad bixiyay xisaabaad ayaa laga wada furay bangiyada dhan muxuu ahaay mobile money lacagta EVC ga iyo e-dahab iyo wixii mobile money ah dhan ayadana xisaabaada laga furay halahan waa yartahay isdeen qof Soomaaliyeed oo meel kasto caalamka aad ka joogto dollar nus dollar ka sii yar ma yara dadka Soomaaliyeed kuwa Ilaahay wax siiyeen wax badan ha dhiibaano kuwa kalena nin walba inta awoodiisa la agta ha dhiib ogow $1 hadaa dhiibto macno sameynaya waxba u dhisaa waxba u taraa waxaan rabnaa walaalaha Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan in ay dawladda Soomaaliya ku garab istaagaan ayadoo ayaga wakiil ka ah inay dhahdo walaalaheen waana kana tabarteena intaan noqotay qalbigana waa idin kala jirnaa waana kana inaan dhahno sida ugu dhaqsiyaha badan waa daasana dib u dhacan ugu jira duruufaan dib u dhacan ugu keenay iyo muxuu ahay magaciisa waxaan rabaa taas in ayadana dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan inay soo haliiraan qof kasto Soomaaliyeed qofka kale uu gaarsiiyo muxuu ahay jaalida Yurub dad badan oo wakiilka aan Roomo ku soo aragnay ayadoo waa kala soo hadalnay arintaas aan kala soo hadalnay arinta dalka dib u dhiskiisa aan kala soo hadalnay dalka dib u dhiskiisa waa dheer tahay waana mashruuc kale ayadana mar dhow noo bilaaban doono iman doono laakiin maanta midaana taagan wadar xaajo waa isxayeysiisa isku dul furmayno maanta gurmadka walaalaheena aad taagan Turkiya iyo Syria aan kaas aan u soo degdegno aan u soo haliilno hadii aan leeyahay xukuumadda iyo guddiga la magacaabay isugu jira xukuumadda iyo ganacsatada iyo bulshada rayidka iyo culamaa u diinka iyo dhalinyarada kulli isugu jira ayaa la magacaabay guddiga halala shaqeeyo hala garab istaago mar dhow ha naga soo baxdo waxaan dhigi karnaa waxaan waa la shirtay karnaa sidaas oo kale anagoo wada jirno un baan haddana yaan wixii dhiibi doonaa Soomaaliya oo dhan ah hadii aan leeyahay